dhammaan waa salaamaya shacabweynaha reer Puntland habeenimada xalay waxa magaalada Qardho soo gaaray wafdi heer wasiir oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowladda Puntland mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wafdigaasi waxa ay magaalada Qardho u yimaadeen qiimeynta iyo indhaynta dhibaatooyinka ay daadadku u geysteen magaalada Qardho wafdigu waxa ay shir degdeg la yeesheen maamulka gobolka maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan shirkaas waxa looga arrinsanayay sidii xal waara looga gaari lahaa daadadka iyo waxyaalaha fatahaadaha soo laabtay ee degmada Qardho sanad kasta markii roob da'o waxyeeleeya kadib wafdigu saaka waxa ay sameeyeen kormeer goobihii ay biyuhu waxyeeleeyeen waa la soo indheeyay waxaan la arkay dhibaatadu inta ay leeg tahay halka laga bilaabo ilaa sabta dheer wixii saaka soo xigay ilaa suuqii oo dhan ilaa gubri intaas way dib ugu badan iyo wixii ka hooseeyo oo biyihii oo dhan ilaa qoryacad iyo xingood biyuhu soo mareen laakiin dibta ganacsiga inta ugu badan halka gooynta ganacsiga halka ka bilaabmaysa sayna u laabanayna ilaa gufra ka soo idul qalbi yaalo inta halka aan guriysa halka sida ku aan qoray marka waxa way halka bakaaradii oo dhan waa xiran yihiin raashinkii banaanku yaala waxa jira bakaaro oo daawada xoolaha lagu iibiyo wixii banaanka yaala ayaguna roobadaas ku jiraan waxa weeye waa riski weeye lama soo gali karo halkan waa kana haweenkii meelihii la geeyay iyo barihii suuqyadii kullu ka soo guureen wixii qudaaraha banaanka jira waa buuxsan wadada halbowlaha ay gufur galaysa waa waa ka wadada waxa weeye lama gali karo wax mari kara ma la soo gudbi karo inta la israaciyo oo wax weeye la baabiyo hadda waxa emergency ni abooyidii ina hesha inta soo socdaan hawl way iyada soo mugda marka daraftu aniga si dhumay garow aan boosoo ka dabooy hada la dalbay hadda wayna dalbay magaalada waxa booli magaalada isku xirta Puntland waay marka dadku imaanayaan inay garantiin tahay waxaan dhisayno marka ka farbuuxsano oo intan maartay boloshay inaynu maartay si dhab ah oo ay dib u go'in inaynu u dhisno taas muhiim ah marka injineer ahaan taas inaad maartay ka saabtaan kan marka waxaan rabnaa inaanu sidoo ahaa aan u sameeyno dabadna biyadaca xagga ah waxaan rabnaa rifraab dhagax leeyahay rifraab iyo concrete bal dhigaya hoosana waxaan sameeynaa gabion wire laba layer oo gabion wire وبيو هدي يمالان هدا سين جدا من مرلبات أوقات إيرياسنا وانو ليفل قرينا عركاون كينا سيج كيدو هراء وبابورتي جايز كسي نو دافان وانو قشينا لوضا مامو صوص عدا مانتي بريت دوانا لاني انت نقولو دان لاني حاج خير لغا سوغر فراي مشين كيو ديار لاني يسو كيسو يان صاينا وحن رمنا سدح مامو قد هود إنانو ودولا قفرنا ديالينا انت كدب وفدقو شر iyo indhayn kadib waxa la isla qaatay in xaaladda wax ka qabashada degmada Qardho laga dhigo laba wajiga koowaad waa waji degdeg ah oo magaalada in wadooyinka la furo ciidii wadooyinka laga qaado qashinka magaalada laga saaro dadka noloshooda iyo ganacsigooda si u soo laaban lahayd iyo wajiga labaad oo ah waji xal waara degmada Qardho loogu sameyn lahaa si aysan dhibaatada marnaba u soo laaban wajiga degdega dowladda Puntland waxay ugu tala gashay dhaqaale إن شاء الله بإذن الله كريم ماملك دقمة ماملك قبل كأيام واحد ساري سيدك دقايا وحنا قبضنا هدي له إدمو